anigu xabadda bartaasay iga soo gashay, bartaasay xabaddu iga soo gashay. Haddaad arkaysaan bartaasayna ka baxday, bartaasayna ka baxday xabaddu. waa Bilaal Bulshaawi waxa uu ka sheekeynayaa qisadii xanuunka badneyd ee ku dhacday iyo dhaawacii halista ahaa oo uu ku sigtay inuu u geeriyoodo oo loogu geystay maqaayad ku taalla Muqdisho. Bilaal oo ilmeynaya ayaa mar kale ka soo muuqday barihiisa bulshada, waxa uuna bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa qaabkii ay wax u dhaceen, isagoo weliba tilmaam ka bixinaya halka xabadda looga dhuftay iyo sidoo kale halka ay ka baxday. Waxa uu sheegay in dilkiisa uu ahaa mid qorsheysan, rag isaga saaxiib la ahaana ay soo abaabuleen, inkastoo magacyadooda uu qariyay. Bilaal waxa uu si maldahan u sheegay inay jiraan dad fara badan oo isaga cadaawad ay ka dhaxayso, gaar ahaan waxa uu carabka ku adkeeyay inay jiraan fanaaniin uu ku tilmaamay kuwo mujrimiin ah oo dilka isaga u soo abaabulay, inkastoo uu Bilaal sheegay in uusan hadal badan awoodin, dhuuntana ay xanuunayso. waa basaasiin ilaahay aan ka baqaynin oo kaafiriin ah oo ilaahay aan ka cabsanaynin oo sujuudta aan dhihin. waa fanaaniin wiilal iyo gabdho isugu jiraan, waa youtubero, waa tiktokero, intuba way isugu jiraan. intoodana waa ka daba tagaynaa insha Allah, waana ka adkaanayna haddii Alle idmo. arrinta mucjisada ah ee muuqaalka baad ka arki kartaan waa halka xabadda ay kaga dhacday Bilaal Bulshaawi markii toogashada tooska ah loo geysanayay iyo halka ay ka baxday, oo tii Rabbi oo kaliya uu ku badbaaday marka aad eegto halka xabadda looga dhuftay Bilaal oo la doonayay in naf dhulka uusan la dhicin, laakiin kuwii wax dilayay ma ogaa alla dila ayaa dhinta. Bilaal Bulshaawi ayaa dhanka kale waxa uu caawimaad weydiistay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan saaxiibada ku xiran boogiisa baraha bulshada uu ku leeyahay. Bilaal oo ilmeynaya ayaa waxa uu sheegay in dadka oo dhan, gaar ahaan saaxiibada sida gaarka isaga ugu tixan ay u yihiin afayeenno. waxa uu ku soo celceliyay inuusan hadli karin, carabka uu culus yahay, dhuuntana qaybta gadaala ay xanuunayso. waxa uu Bilaal sheegay in Turkiga uu ku tagay si rafaad ah, uuna dulsaar ku yahay saaxiibo Turkiga isaga kaga horreeyay oo guri kiraa halkaasi ka degan. waxa uu sheegay in qof walba oo caawin karo maanta uu caawimaad uga baahan yahay. sidoo kale waxa uu yiri waxaa jira dad fanaaniin u badan kuwaasoo barabugaada iga faafinaya, Allah ayaan ku diya ayuu yiri Bilaal oo ilmadu ay ka qubanayso. muuqaalkan uu soo duubay ayaa ka duwan gabi ahaanba muuqaaladii hore, gaar ahaan warbixinadii u dambeeyay ee xaaladda Bilaal laga sameeyay. waxa uuna muujiyay xadka uu la eg yahay dhaawaca soo gaaray Bilaal Bulshaawi oo caan ka ah baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok oo lagu sheegay inuu yahay madaxweynaha dhalinyarada bartaasi ku ciyaarta ama sida weyn uga soo dhex muuqata. Bilaal ayaa intii uusan dhaawacmin ka hor waxa uu ku howlanaa caawinta dadka masaakiinta ah, gaar ahaan waxaa si weyn loogu xusuustaa kaalintii uu ka qaatay abaarihii ku dhuftay gobolada dalka oo uu ka soo muuqday isagoo xoog iyo xeeladba uga xamaalaya sidii dadkaas masaakiinta ah ay wax u heli lahaayeen. haddaba xaaladda Bilaal wixii ku soo kordhaa iyo arrimihiisa halkan ayaad kala socon doontaa. rukumo Facebookgeena Badda Cas Media iyo sidoo kale boggaan ku leenahay YouTube-ka. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.